السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan fiirin doonaa waxyaalo badan in badan dadku runtii ay kombiyuutarada ku arkaan inta isticmaalayaan halkaan oo kale calaamadan sida ka muuqato window activate window kulle go setting to activate window kulle marka la xalliyo inta yarta baan fiirin doonaa inaynu saakis la aragno waxaad tagaysaa marka waxaas kala aragtid waxaad tagi karaa browser ka tagaysaa ku qoraysaa window window 10 activated tagaysaa ku qoraysaa way inta maxaa qodhid halkan ku saarayaa window 10 activated tagaysid haye ms gaadis ku saarayaa halkaas ayaa kala kusii doontaa وسوبنا انتو سوى كمبيوتر كها خدك حوغا عريسة marka koorkan tirada badan ku soo doona ama tagastiga naaraado xaaladan dooranaysa tagaskan dhamaantiis ku biisanaysa control c waa leedahay waxaad tagaysaa note baaraado notarius notbarkan bala soo baxaysaa markaas ruko biisan notbarkan control v baan leeyahay intaan markaan sameeyo kan hoos waan soo dhigayaa waan save garaynayaa waxaan ku save garaynayaa desktopka ayaan soo dhiganayaa laakiin waxaa muhiim ah magaca ku qoraysid inaad iska hubisid ku qoreen activate dotbat wala desktopka inuu yaalaa saftaan oran doonaa hadaan kombiyuutarkayga waxaa qarinayaa waxa soo ii saaran shaashada ayaa qarinaya halkaas ayuu ku soo qorayaa inta hadaan tusahay halkaas ku soo qoraya halkan calaamada settingka kor uu sameeyay click baan siin doonaa run administration baan leeyahay yes baan leeyahay waxaa la window command processor haya yes baan oran doonaa shadan baa leedu saaran waxaa la activating your window asaga ayaa hawsha soo sugi doonaa inta ku dhammeynay xogaa marka uu daahaya in yar waqti u qaadan doonaa dulqaado sug intuu ka dhameynayo marka trigga yarkaaga lagu xaliyaa markii aad ku aragto kombiyuutarkaaga inta yarkaaga ku xalin kara aad iyo aad u fududaa inaad fahanto kaalmeeyo waxaa laga soo qoray marka halkan laga soo qoray productive activated successful baa laga soo qoray